dooda inaad dib u dhiska dalka ka qayb qaadataan oo aan rabo inaad igala shaqaysaan inaad dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ragga aad fahamsiisaan waxaan rabaa inaan sida hore si ka duwan u dhigno doodaas oo macnaheedu waxay tahay dunida hadda aan ku noolnahay waa adduunyo aqoonta iyo dadka lagu tartamo waa adduunyo qof waliba dadkiisa uu xisaabsan yahay wax soo saarkuna uu ku xiran yahay sida aad dadkaada u howlgeliso haddii marka boqolkiiba 50 dadka Soomaaliyeed ay gabdho yihiin annaguna gabdhaheena aan fursad siin weyno oo boqolkiiba 50 kaliya dadka dalka u dhashay oo xaq ku leh ay noqdaan kuwa fursadda leh macnaheedu waxay tahay waxaa naga xumaanaya tartankii dunida aan kula jirno haddii marka aan madax nahay haddii aan rag nahay xitaa lama rabo inaan niraahdo gabdhaan asxaan u samaynaynaa keliya waxaa la rabaa in la yiraahdo si dalkeenna uu u horumaro waxaa khasaba in qof walba oo Soomaaliyeed loo ogolaado inuu ka qayb qaato dib u dhiska dalka doodaas ma isla garan haddaba marka doodi waa dooda ah marka inaad xuquuqdiina aasaaska ah aad heshaan doodina waa sababaha sababtu waxay tahay tii aan hadda idiin sheegay oo ah inaad bulshada ugu yaraan boqolkiiba 50 ka tihiin sababta kale waxay tahay in hadda gabdhaha iyo ragga marka la isbarbar dhigo aqoon ahaan ay gabdhuhu ragga ka aqoon badan yihiin jaamacad walba ay gabdhuhu ku badan yihiin dunida iskuul walba ay gabdhuhu uga badan yihiin aqoon ahaanna ay ka fiican yihiin saddex waa hooyooyinkii qoysku uu ka soo aasaasmayo afar meel walba oo laga shaqeeyo oo ay rag iyo dumar ka wada shaqeeyaan way ka fiican tahay meelaha ragga kaliya ay ka shaqeeyaan meel walba oo gabare ay mas'uul ka tahana waxay u badan tahay in horumarkeedu uu ka fiican yahay meesha wiilashu ay mas'uulka ka yihiin shan dalkan mas'uuliyadiisa waxaa iskale dadka ugu badan waxaana ugu badan waa dhalinyarada dhalinyaradina gabdhaha ugu sii badan sidaas daraaddeed ayaad waxaad leedihiin xuquuq ay khasab tahay inaad ka doodaan sida lagu gaari lahaa halkan marka waxaa la rabaa inaan shaqada laba u kala qaybino mid waa idinka oo u baahan inaad is abaabushiin dhalinyaro ahaan haddana gabdho ahaan idinkoo isu abaabulaya ma aha maanta jiilka jooga laakiin gabdhaha dhali doontaan iyo kuwa ay sii dhali doonaan sideedaba awoodda ay gabdhuhu leeyihiin codka ugu horeeya oo lagu soo celinayo inuu idinka yimaado annaguna aan idinkugu kaalmayno laakiin haddaadan idinku abaabulnaynina waxaa laga yaabaa inay dhibaato noqoto ama wakhtiga uu idinku dheeraado gabar walboo Soomaaliyeed waxay xaq u leedahay inay hesho fursad la mid ah fursadaha ay raggu helaan waxay xaq u leedahay in loo tixgeliyo sida ragga loo tixgeliyo waxay laakiin khasab noqonaysaa inaad idinku abaabulan tihiin idinka waxaa laydinka rabaa marka abaabulkaas aad ugu talagelaysaan inaad rabtaan inaad boqolkiiba 50 aad ku leedihiin awoodda dalka aad qaadataan laga yaabee maanta inaan la gaarin laakiin waxaan aaminsanahay intiinaan oo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo kulli jaamacado ka soo baxay ama dhigta iyo inta kale oo dalka joogta oo isku xiran waxaan aaminsanahay haddaad is abaabushaan inaad gaari kartaan hiigsigaas isaga si marka aad maamulka dalka qaybtiina uga qaadataan waa inaad taariikhda dunida dib u fiirisaan
waa maxay si awooddiinnu ay u muuqato kow horta waa in abaabulkiinnu muuqdo labo waa in qaybaha kala duwan ee bulshada aad ku leedihiin cod muuqda macnaheedu waa maxay waa in jaamacadaha macallimiinta joogta ama brofesorada jooga aad ka mid tihiin waa in ganacsatada magaalada ugu waaweyn ay idinku ka mid noqotaan waa in meelaha muuqmuuqda oo dalka meel walba gabare ay ka soo muuqato mid waxay ku xihan tahay idinka dadaalkiina oo maadaama aqoontii ragga iyo dumarka marka la isbarbar dhiga hadda idinku aad safka hore ku jirtaan halkaan ay fadhiyaan dhakhaatiir civil engineers social scientists sida gabdho kala duwan waxaa la rabaa inaad aqoontaas sii wadataan isku dhiiri gelisaan oo dadka dalkan hormuudka u ah aada noqotaan laakiin waxaa loo baahan yahay in dowladda dalka jirta mar walbana ay ku foojignaato sidii fursad laydinkugu sii lahaa waxbarasho u khaasa in gabdho soomaaliyeed kor la geeyo dhaqaale loogu danaynayo gabdho soomaaliyeed inay ganacsigooda kor ugu kacaan shaqooyin loogu danaynayo in maamulka iyo maareynta dalka mustaqbalka gabdhuhu ay qayb ka noqdaan iyadoo dhallinyaradii caqabada iska haystaan dalka caqabada ka jiro ayaad haddana idinku waxaad leedihiin caqabado idinka idin gaara oo idin gooni ah oo aan aaminsanahay inay runtii nasiib darro tahay u baahan in la idinka wareejiyo waa ogahay dalkeennu dhibaato badan uu soo maray burburkii laga soo bilaabana dalkan wuxuu ku soo badbaaday hooyooyin iyo gabdho soomaaliyeed waqtigay ugu darnayd idinkaa soo mootiyey haddana weli waxaan aaminsanahay culayska ugu badan gabdho soomaaliyeed iyo hooyooyin soomaaliyeed ayuu ku dhacay maalintaan soo gaarno in boqolkiiba 50 awoodda aad leedihiin maalintaad soo gaarno in wasiirada nus idinku aad tihiin maalinta ilaahay idinkiisa aan soo gaarno idinku madaxweynaha inaad tihiin waa maalinta aan arki doonno soomaaliyada cusub ee mustaqbalka anigu waxaan aaminsanahay in gabdhuhu ay qaban karaan shaqo walba inay injineer yihiin inay dhakhaatiir yihiin inay pilots yihiin inay scientists yihiin inay wax walba oo maskax u baahan ay gabadhu qaban karto wax walba oo iskuul laga barto oo lagu shaqeeyana waxaan aaminsanahay inay gabdhuhu la fursad eg yihiin ama ka fursad badan yihiin ragga marka ma raba inaan idiin sheego waxaan suurtagal ahayn ama been inaan idiin sheego aan idin idhaahdo dawlad baa idiin imaanayso oo idinka idiin roonaanaysa keligiin in la idiin roonaado ma aha keliya waa inaad khasab ku heshaan xuquuqdiinna waxaan idinkala shaqayn karnaa aasaaskii isaga ahaa si marka uu dalku idiin siiyo fursad horta waa inaan soo gaarsiinaa dalka meel loo tartamo awoodihiisa iyo shaqadiisa waa inaan dalka soo gaarsiinaa inuu leeyahay institutiono dhisan hay-ado dhisan oo shaqeeya hay-adahaas shaqeeyana dadku ay shaqooyinka ku tartamaan marka ay dadku tartamaanna rag iyo dumar waxaa lagu kala baxayaa aqoonta meel aqoon lagu kala baxayana waxaan aaminsanahay inaad gabdhahu ay ka fiicnaanayaan ragga soo maha marka idinka marka waxaad uga duwan tihiin dadka intiisa kale waxaad tihiin kuwa dawlad cadaalada ku aflaxaya kuwa dawlad wanaag ka faa'iidaya kuwa dawladnimadu ay fursadda ugu weynsiinayso maxaa marka ina hortaagan waxaana hortaagan inaan samayno hadda waxyaabihii aasaaska u ahaa dawladnimada oon dalka gaarsiino in qof walboo soomaaliyeed uu codkiisa dhiiban karo isagu in qof walboo soomaaliyeed uu xisbi ku beeri karo in qof walboo soomaaliyeed lagu qiimeeyo aqoontiisa in qof walboo soomaaliyeed maxaad soo baratay ama taqaanaa
uu wax ku helo oo aanu wax ku raadin yaa taqaana. intaas si loo sameeyo dalku wuxuu u baahan yahay marka dawlad aqoon ku dhisan oo xirfadlayaashu ay ku badan yihiin, laga ilaaliyo danaystayaasha iyo qabyaaladda. wuxuu u baahan yahay dalku in loo dhammaystiro dastuurka. si dastuurka loogu dhammaystiro wuxuu u baahan yahay in laga heshiiyo awood qaybsiga, khayraad qaybsiga, nooca dawladeed, nooca cadaaladeed, nooca adeeg bixin iyo maqaamka magaalo madaxda dalka iyo waxyaabo kaloo dhiman. intaas markii laga heshiiyo oo dastuur lagu qoro wuxuu inoo suurto gelin doonaa in dalku u gudbo xisbiyo siyaasadeed ood qayb ka noqon kartaan, awooddiinnana aad ku muujin kartaan. markii la gaaro in qof walbo Soomaaliyeed oo madax noqonayana codka shacabka lagu soo doorto, waxaa badan doonta awooddiina.